maadaama sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahay oo ina abuuray oo ina leeyahay oo ina maamulo oo nicmiyo wanaag kasta uu ina siiyey wuxuu xaq inoogu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala inaynu noqono addoomo dhaba oo aynu xaqiijinno ujeeddada ilaahay inoo abuuray. saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow. qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay, hadduu fadhiyo, hadduu jiifo, hadduu soconayo, hadduu arrin adduunye ku jiro, hadduu masaajidka fadhiyo, hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo, waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin. qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo, maamuusna kuma rabo, manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa. ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso. ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr. afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu. iimaan, camal saalixa, sabir aad ku sabirto wanaagga, xumaanta aad ka sabirto, qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto, iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon. abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo, beec iyo shiraa, inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan. wuxuu ku uhi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid. dadoo halkanaad fadhidaan, dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka. dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegey masaajidka in lagu qaybsanayo. waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo, qur-aan lagu baranayo, masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan. waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu. waxay dhahan yaa aba hurayra inamaa taquul, abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo. wa kula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi. ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa, waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo. iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba. waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey, naftaadaa maanta kuugu filan cid ku xisaab. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون عباد الله، دمانتين أنيقا يا أديقا يا قف والبا وحين سوغيسا حساب ويا وحين نهاي دمانتين با كو مكلفينه. ilaahay baa subxaana wa tacaala ina siiyey caqli aynu kaga duwannahay noolayaal fara badan oo adduunyadan dusheeda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku uumay oo inagu hareeraysan. waa caqligaasi ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay inaynu noqonnay kuwo mukalafiin ah, waxna loo diray waxna loo diiday. waxaa arrinta noocaasana ka dhashay in wixii laynoo diray bal inta aynu ka xaqiijinay aynu ka samaynay laynaga xisaabiyo, wixii laynoo diidayna bal waxa aynu ka yeelay in laynaga eego, iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala uu og yahay waxa aynu samaynay, waxaynu ka tagnay, waxaynu wanaajinay iyo waxa aynu xumaynay. haddana ilaahay si uu u muujiyo cadaaladdiisa, muranka addoomaha madaxa adagna uu soo afjaro, rabbi subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay waxa aynu samaynayno, waxa aynu ku hadlayno, waxa aynu dayacayno iyo waxa aynu dayactirayno intaba mid laynaga qoro. qoraalkana waxaa ku xigta in laynaga xisaabiyo oo layna soo hordhigo. wa kula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi. ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa, waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo. iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba. waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey, naftaadaa maanta kuugu filan cid ku xisaabisa, adigu garnaqso.
arrinta noocaasi waxaa qof kasta oo muumina dhammaanteen ba ay nagu dhalinaysaa inaynu inagu isxisaabinno intaan layna xisaabin an nuxaasiba anfusanaa qabla an nuxaasab inaynu nafeenna xisaabinno inta aan xisaabta laynagu bilaabin wa an nastacida lilcardi alakbar inaynu u diyaar garowno bandhigga weyn ee ilaahay subxaana wa tacaala laynoo bandhigi doono yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya waa yowma alqiyaama ilaahay baa laynoo bandhigayaa innaga iyo waxaynu samaynayba wax arrinkeenna ka mid ah oo ilaahay ka qarsooni ma jiro wixii xataa sirtaynu aynu qarsanaynay oo bannaanka lasoo dhigayaa yowma tubla saraa'ir qof walbana sida uu naftiisa u xisaabiyo ayaa xisaabtu ay u noqonaysaa yowma alqiyaama man xaasaba nafsahu haahunaa khafa calayhi alxisaabu hunaak qofka naftiisa halkan ku xisaabiya xisaabtu halka way ugu fududaanaysaa qofka aan naftiisa xisaabinna xisaabtu way ku adkaanaysaa wuxuu yidhi alxasanu albasriyu raximah اllah almu'minu qawaamun calىa nafsihi yuxaasibuhaa mu'minku waa mid naftiisa maamulaya oo mas-uulka ah oo mar walba usha la dul taagan xaalad walbana wuu xisaabinaya wainamaa khafa alxisaabu yowma alqiyaamati calىa qowmin xaasabuu anfusahum fi اddunya waxay xisaabtu u fududaatay maalinta qiyaame dad naftooda xisaabiyey adduunyada markii ay joogeen qofku naftiisa haddii uu xisaabiyo waxaa u caddaanayaa saxiisa iyo khaladkiisa khasaarihiisa iyo faa'iidadiisa qofku hadduu naftiisa xisaabiyo waxaa dhacaysaa khaladkiisa inuu saxo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keeno si aanu ilaahay u hortegin isagoo dhabarka ku sitaa dembiyo culaysiiyey qofku haddii uu naftiisa xisaabiyo wuxuu kor u qaadayaa rasiidka xasanaadkiisa farallada uu gudanayo iyo sunnayaasha uu samaynayo qofku hadduu naftiisa xisaabiyo naftiisa wuxuu ka xakamayn karaa waxa ilaahay uu ka mamnuucay walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala waanada u weyn waxa uu inooga dhigay inuu inoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala oo inoo tilmaamay in ilaahay subxaana wa tacaala berri aynu hortegi doonno oo xisaabi ayna sugayso yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waltandur nafsu maa qadamat ligad ilaahay wuxuu yihi muuminiinta ilaahay ka baqda naf walibana ha eegto qiyaamihii waa berri ilaahay baa la hortegayaa subxaana wa tacaala yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waa maalin dadku ilaahay hor istaagi doonaan ilaahay ka baqda naf walibana ha eegto berri waxay u hormarsatay itaquu llaha ina allaha khabiiru bima tacmaluun ilaahay ka baqda ilaahay xogogaal buu u yahay wax allaale iyo waxaad samaynaysaan waxaa jira waxyaaba aynu jecel lahay aakhiro aynu la kulanno oo aad iyo aad ay noo faraxti gelinayso ilaahay subxaana wa tacaala inaynu la hor tagno maanta ayaynu fursad haysanaa anigii adiguba waxaynala gudboon wax kastoo aynu jecel lahay aakhiro ilaahay inaynu la hor tagno maanta inaynu samayno wax kastoo aynu dhibsanayno aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala inaynu la hor tagnana maanta in aynu ka fogaano nafteenna aynu ka dheerayno naftan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku geliyey ayuha alcabdu lmuslim waa naf dhibaatadeedu ay badan tahay inta ay xumaanta ku farayso ayaa badan ina الnafsa la amaaraة bisuu waa mid xumaan faris badan allaha abuuree xogogaalka u ah ee cidina aanay ka aqoon ayaa sidaa ku sifeeyey oo ku tilmaamay naftaasi waa shariik shuraaka ayaa tihiin haddaad shuraako tihiin qofaad khiyaano ku tuhmayso amaba si aad ku og tahay maxaad yeeshaa anigii adigoo maxaynu samayn lahayn waxaad yeelaysaa inaad digtoonaato xisaab aada la daba taagnaato maxayna soo galay maxaad iibisay shaygaasi halkuu ku baxay arrintaa kharashka ku baxay caddaynteedii soo bandhig maxaa khasaaraha maxaa daliil iyo calaamadu ah caddayn u haysaa inuu khasaara inugu dhacay xisaab baad la daba taagnaanaysaa
naftaadu haddaanad xisaab la daba taagnaan waxaanu shaki ku jirin way ku khiyaamaynaysaa innahaa wallaahi shariikun khawaan ilaahay baan ku dhaartee waa midaad shuraaka tihiin khiyaamadiisuna ay badan tahay qofka muuminka ahi wuxuu leeyahay raasamaal waxaa kaloo uu helaa adduunyada intuu joogo macaash faa'iido iyo ribxi raasamaalkaagu waa inaad samayso faralkii ilaahay uu kuu diray ilaahay uu ku saaray wuxuu ilaahay kaa mamnuucayna inaad ka fogaato macaashka iyo faa'iidadu waa inaad faralka samayntiisa ku darto sunnayaal waxyaaba makruuhana inaad ka dheeraato nafta maxaa laga xisaabinayaa waxaa laga xisaabinayaa bal horta raasamaalkii raasamaalkii haddii la waayo macnaheedu waxa weeye khasaara ayaa dhacay raasamaalka marka laga xisaabiyo dabadeed ayaa laga xisaabinaya macaashka waxaad ka xisaabinaysaa maalin walba faraladii ilaahay uu diray maxaad ka yeeshay wixii ilaahay uu ka mamnuucay naftu maxay samaysay maxay sadiisay haddii ay soo baxdo in faralkii ilaahay uu saaray siduu ahaa naftu ay uga soo baxday wixii ilaahay ka mamnuucayna ay ka dheeraatay wanaag iyo guul ayay taagan tahay ee macaashka u gudub oo weydii sunnayaashii salaad sadaqad soom dikri iyo cibaadaadka kale sunnayaashoodii bal waxa ay ka yeeshay habeenkii markaad gogashaada tagto ee naftaada aad la gooni noqoto ee cidina aanay kuu helin iyada si gaara ula xisaabtan si aad u seexato adigoo xisaabtii xidhay oo ku xidhay inaad ilaahay uga mahadnaqday wanaaggu ku waafajiyey khalad iyo gaf wixii kaa dhacayna inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga toobad keentay oo adigoo caddeeyey safxada iyo beyjka acmaashaada wixii xumaanta ahaa ka sifeeyey hurdada seexo ilaahay baa og inaad soo toosi doonto imisaa qof seexday aan sooba toosin hala seexanin xisaab xumo iyadoo xuquuqa kuu maqan tahay hala seexanin iyadoo xumaano iyo dayn fara badani ay kuu qoran tahay xisaabtaada sifee oo wanaaji si ilaahay haddii lagu horgeeyo hurdadu waa geeri yare ilaahay lagu horgeeyo subxaana wa tacaala iyadoo xisaabtu ay ku saxsan tahay wuxuu yidhi alimaam sufyaan ibnu cuyayna raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi ibraahim ataymi waxaan takhayulay oo aan sawirtay qofka muslimka waa indheer garad aakhira indhaha oo hor taalla jannadii iyo naartii inuu arko oo kale ayuu ka dhigan yahay waxaan sawirtay anigoo naartii galay walciyaadu billaah ilahay baynu ka magan gelaynaa oo naartii zaquumkeedii aan cunayo zamahriirkeedii qabowgii naarta ahaana aan cabaayo iyadoo gararkeedii iyo xadhkaheedii adkaa laygu giijiyo oo laygu xidhay markaasaa naftayda markaan xaaladda u sawiro waxaan ku odhi xaaladda haddaad ku jirto maxaad jeclaan lahayd waxay tihi waxaan jeclaan laha adduunyadii laygu celiyo oon ilaahay u toobad keeno oo aan sameeyo waxaa naarta kaga badbaado waxaa naftayda u sawiray iyadoo jannadii dhex joogta oo xidhan xariirtii iyo sunduskii iyo istabraqii noocyadii xariirta ee kala duwanaa oo naftu islaba rogaysa ama isrogrogaysa naciimka jannada ilaahay ku diyaariyey dhexdiisa markaasaa waxaan idhi nafay maxaad jeclaan lahayd haddaad heerkaa iyo darajadaad gaadhi lahayd waxay tidhi in adduunyadii laygu celiyo oo aan sameeyo wax sabab u noqda in naciimka lay kordhiyo waayo jannadu waa darajaad ahluljannuhu iyagoo ahluljanno wada ah ayaa haddana aada u kala sarreeyaan wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahluljannu waxay isu tilmaamaan oo ay istusaan guryo aad iyo aada uga sarreeya qaarkood sida dadka adduunyada jooga ay isu tusaan xidigaha aadka u fog ee jihooyinka samada ku libirhsan waxay nafti tidhi markaan idhi maxaad jeclaan lahayd in adduunyadii laygu celiyo oo aan sameeyo wax naciimkan laygu siyaadiyo oo laygu kordhiyo waxaan ku idhi maanta ayaad haddaba adduunyadii joogta ood fursaddii haysataa khaladkaaga aad sixi kartaa wanaaggaagana aad kordhin kartaa ood siyaadin kartaa laakiin naftu haddii ay kaa baxdo dibu celinina ma jirto fursaddaasina way gooday saasi ayay tahay anigiiyo adiguba nafteenna inaynu u horkeenno jannada iyo naciibkeeda naarta iyo cadaabkeeda oo arrinta noocaasi qayb ay ka noqoto naftu
in ay xisaabtanto anigii adiguba nafeen aynu xisaabino inta aan layna xisaabin acmaasheennana aynu miisaanno inta aan laynoo miisaamin mar haddii layna xisaabiyo waxaa xisaab ku xigaa la abaalmarin ilaahay baa maaliki yowm iddiin mar haddii miisaanka laynoo saaro waxa ku xigaa waa in laynagu abaalmariyo faman haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishatin raadiya qofka miisaanka wanaag u cusleeyaa nolol wanaagsan buu geli doonaa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya ka miisaankiisu uu dhinmo ee uu hooseeyana hoygiisu waa haawiya ilaahay haawiyaha inaga badbaadiyo dadku aad bay ugu xisaabtamaan adduunyadooda khasaarahana ay uga ilaaliyaan waxaad arki kartaa ma aad maqli kartaa qof habeenkii meheradiisa hoosta intuu ka soo xidho goobtiisa ganacsi ku raagaya subaxiina laga yaabo salaada subax inay dhaafto ama isagoo hurdo badani wejigiisa ka muuqato hurdo la-aan wejigiisa ay ka muuqato isagoo soo toosoo dirqi masaajidka ku yimid marka la weydiiye maxaa dhacay odhanayaa xalay baan xisaabtii ku raagay taasi waxa ay sababtay inaan aad u daalay hurdo la-aanina ay ugu dhacday waxaad arkaysaa xisaab xidh habeen kasta ah toddobaad kasta ah bil kasta ah sanad walba taagan maxaa xisaabtanka noocaasa loo samaynaya iyadoo arrintuba arrin adduunye ay tahay waxaa loo samaynayaa si khasaare looga badbaado macaashna loo gaadho khasaaraha dhabtahay waa khasaaraha diineed waa aakhiro inaad khasaarto macaashka dhabtahayna iyo faa'iidada xaqiiqiga ahina waa aakhiro inaad faa'iido ood macaashto oo janno aad gasho aniga iyo adigaba waxay nala gudboon oo xisaabtan u mudan diinteenna maxaa iimaankaagii ku ziyaaday khushuucdaadii alla kacabsigaagii aqoontaadii diineed maxaa ka go-ay oo ka dhacay haddaad xisaabtanto waad isgaadhi doontaa inta aad nooshahay ee fursaduhu weli ay furan yihiin oo waad toobad keeni doontaa wanaaggana waad kordhin doontaa oo xisaabtanku wuxuu keenaa qofku dadaalka inuu ziyaadiyo kordhiyo khaladkiiyo qalloocana inuu saxo allaha ina abuuray baan inoo weydiinayaa inuu inaga dhigo kuwo nafahooda la daba taagan xisaabtan joogto ah allah subxaana wa tacaala ina abuuray waxaan dhammaanteenba inooga baryayaa inuu ka dhigo quluubteenna mid u soo jeeda nafaha inaynu ka xisaabinno diin iyo iimaan cibaado faral iyo sunne wax laynoo diiday xuquuq nooceeda kala duwan kuwa nafta ka xisaabiya ilaahay inuu naga dhigo wallahu aclam وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد